Ka hor intaadan daawan muuqaalkan, walaashayda qaaliga ahay, walaalkayga qaaliga aho, fadlan like iyo subscribe. Mahadsanid. John Faniski waa nin ka soo jeeda gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Wuxuu muddo ka badan 20 sano uu ku nool yahay dhulkayma isagoo la qabsaday nolosha keynta. Ninkan ayaa awood u leh fuulidda buuraha isagoo sidoo kale waarsada xayawaanada kala duwan ee duurka kula nool. Waxaa maalin kasta uu ugaarsi tagaa kaymaha ku teesan halka uu ku nool yahay isagoo dila xayawaan kasta oo indhihiisa ay qabtaan. qalabka uu ku ugaarsado ninkan waxaa ka mid ah baangad maalin kasta uu la dhex qaado keynta si uu ugu disho xayawaan kasta oo gacantiisa ay gaadho. Master Faniska ayaa baangadiisa ku qoda dibirka iyo buuraha isagoo deetana halkaasi ka baaday gooba noocyada kala duwan ee dixiriga oo ah nooca ugu jecel yahay cunida hilibkiisa. Baadigoobka ugu weyn ee hadda uu ku jiro waxa weeye sidii uu ku heli lahaa dixiri uu quraac ka dhigto. wuxuuna durbo uu bilaabay inuu kala soo baxo dibir ku yaala halka uu keynta kaga nool yahay. Waxuu guranayaa ilaa gacmihiisu ay ka buuxsamaan oo is yiraahdo waad haysataa in kugu filan maanta. Waxuu hadda soo aaday goobtii uu ku karsan lahaa, wuxuuna soo qaatay dhoobo adag oo uu doonayo inuu ka dhigto dhardhaaro iyo saxan ama fujaan uu ku duldubo hilibka dixiriga ee uu wato. Sidaad u jeedaan waxuu bilaabay inuu ku dulguro saxanka. Master Faniski ayaa hadda isu diyaarinaya inuu shido dabka uu ku karsan lahaa hilibka uu sito isagoo soo gurtay xaabo. Wuxuuna hadda bilaabay in uu saaro dabka si uu u bislaysto hilibka uu sito. Hadda waa ay bislaatay, wuxuuna isku dayaa inuu ka qaado dabka deetana uu cuno. Ninkan ka soo jeeda dalka Mareykanka ayaa muddo ku nool kaymaha, wuxuuna aad u jecel yahay ku noolaashaha keynta iyo ugaarsiga xayawaanada duurjoogta ah. Ninkan ayaa si weyn u soo jiitay indhaha dadyow badan oo ku nool dalka Mareykanka iyo daafaha caalamka.